Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in militariga xukuumadda dhexe ee Ethiopia ay gacanta ku dhigeen magaalada muhiimka ah ee la yiraahdo Tigrayga oo ku taala waqooyiga waddanka Ethiopia. militariga qaranka ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Sabtiya ka gadaal dagaal adag oo ay la galeen kooxda TPLF in ugu dambeyntii ay u suurta gashay in magaaladaas ay gacanta ku dhigaan. waxaana dhinaca kale militarigu ay sheegeen in saacadaha soo aadan ay gacanta ku dhigi doonaan magaala madaxda gobolada waqooyi ee ay Tigraygu maamulaan ee la yiraahdo Mekelle. ciidamada militariga Ethiopia ayaa saacadihii la soo dhaafay dagaal adag la galay kooxda TPLF inkastoo militarigu ay sheegayaan in ugu dambeyntii ay ka takhalusiyeen maleeshiyaadkii ka soo horjeeday cagta mariyeen maleeshiyaadkii ka soo horjeeday. ma jiro warar madax bannaan oo la heli karo maadaama anteenada iyo isgaarsiinta gobolkaas gabi ahaanba ay xukuumadda dhexe jirtay. kala wada xaajood ay garwadeen ka yihiin ururka midowga Afrika ayay diiday xukuumadda Addis Ababa. wada xaajoodkaasna qorshuhu waxa uu ahaa in lagu dhexdhexaadiyo madaxda sare ee maamulka TPLF iyo xukuumadda dhexe ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Addis Ababa waxa ay sheegtay in aanay wada hadal la furi doonin kooxo ay ugu yeertay argagixiso iyo cadowga Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa horey wacd uga maray in gabi ahaanba uu tirtiri doono kooxda TPLF. militariga qaranka Ethiopia war laga soo xigtay ayaa hadda waxa ay sheegayaan in magaalada Mekelle ay u jiraan wax ka yar 100 kiiloomitir sida ay wararku tibaaxayaan. saacadihii ugu dambeeyay marka ka dambeysa ayay xukuumadda Addis Ababa sheeganaysay in magaalooyin iyo dhul horle ay kala wareegtay ciidamadii u dagaalamayay kooxda TPLF. saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dowladda Ethiopia ayaa sheegay in inta badan maleeshiyaadka kooxda TPLF ay hadda soo dhiibeen. Abiy Ahmed waxa uu sheegay inaanay macquul ahayn in kuwan ay dalka sii maamulaan ama wada hadal lala galo. Abiy Ahmed oo sheegay in muddo ah uu raadinayay in xaaladda dalka Ethiopia lagu soo dhameeyo wada hadal. ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in TPLF gabi ahaanba ay ka soo horjeedo midnimada qaranka Ethiopia. xoogaga Addis Ababa ayaa hadda guur xoog leh ka gaaraya iyada oo haddii taasi ay dhabowdo ama dagaalka muddo kooban uu ku soo afjarmo ay noqonayso mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa oo uu hanto ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.